maanta waa maalintii koowaad ee Ciidul Adha muslimiinta oo dhan meel walba ay joogaan ay ku ciidayaan farxad magaaladani Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo horey dadweynuhu ay ugu ciidi jireen ama salaada ciid ay ku tukan jireen garoonka kubadda cagta ayaan maanta arrintu saasi ahayn maadaama magaalada Boosaaso uu qabtay roob si weyn ay dadweynuhu ugu diirsadeen masjid ad-dacwa ee magaalada Boosaaso ayaa mas'uuliyiinta iyo inta ugu badan ee shacabka magaaladani waxa ay ku tukadeen masaajidkaasi gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Gallan iyo gudoomiyaha degmada Boosaaso Xasan Cabdalla oo ka soo qayb galay salaadatan ayaa waxa ay bulshada ugu taaniyadeen ciidatan in loo naxariisto oo la gargaaro dadka masaakiinta ee magaalada ku nool gaar ahaan waxaa jira dad afkiiga gacantiisa waayay oo badan oo degan magaalada oo guryaheeda dhinacyadooda jooga gaar ahaanna waxaa jira dad aad u fara badan oo 120 loo weeyaaso oo barakacayaal ah oo intooda badan ay ku nool yihiin bariga Boosaaso dadkaas waxay u baahan yihiin gargaar waxay u baahan yihiin gacan islaamnimo u baahan waxay u baahan yihiin in loo naxariisto waxaan halkan ka taaganayaa munaasabada ciidda ciid al-adha ummadda islaamka meel kasta oo ay ku nooshahay gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Puntland nabiga ka hadashay daacadda rasuulkiisa waxay noo bilaabanayaan intuuroyinka iyo midmooyinka ay codadkooda ay geliyaan arrintu inay ka duwan weligood inay qofku ninkuu rabada muhiimi karo kuu rabada u ogolaan Hussein Xuska Somali Public Radio SBR Boosaaso.